Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen oo uu shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa ay ku ansixiyeen siyaasadda jaangoynta mushaharka iyo dirajooyinka shaqaalaha rayidka ee dowladda oo ay golaha horkeentay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Siyaasadda jaangoynta mushaharka iyo dirajooyinka shaqaalaha rayidka ee dowladda waxay caawinaysaa xaqiijinta ujeedooyinka dowladda ee ku saabsan hab mushahar bixinta iyo astaynta dirajooyinka shaqaalaha rayidka ah. Baahida siyaasaddan hirgelinteeda keentay ayaa ah in laga guuro nidaamkii hore ee dirajooyinka shaqaalaha ee ku saleysnaa kaliya heerarka waxbarasho loona guuro nidaam cusub oo ku saleysan baahida shaqo kasta oo dowladeed, kuwaas oo ay ka mid tahay aqoon, waayo aragnimo, xirfad iyo karti. Siyaasadda la meelmariyay ayaa meesha ka saaraysa nidaamka hadda jira ee darajada shaqaalaha ku saleysan kaliya heer waxbarasho, balse aanan loo eegin heerarka kala duwan ee mas'uuliyadaha shaqooyinka la qabanayo. Cabdiraxmaan Gutaale, Hirshabelle TV, Jowhar.